inaad u istaagtaan in tallaabooyin lagu sii daro sidii ay xukuumadda iyo dowladda Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed u gaarsiin lahaayeen hiigsiga ay rabeen. waxaan idin ballan qaadayaa in xukuumadda anigu aan ra'iisul wasaaraha ka ahay inaanay cidna xuquuqdeeda ku tuman doonin. in qof walba oo Soomaaliyeed oo xuquuqdiisa heli doono, laakiin waxaan rabaa inaan idinku dhiirigeliyo si horumar loo gaaro isbeddel inuu dhaco waa khasab. isbeddelku waxa uu ka turjumaa waayaha mar walba la joogo. tallaabooyinka isbeddel oo ay xukuumaddu qaadayso ama gobolka Banaadir uu qaadayo ahmiyadda ay leedahay keliya waa in lagu hagaajiyo nolosha ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhaqan magaalada Muqdisho. sidaas daraaddeed waxaan idinka codsanayaa sida aan idinkaga codsaday inaad guddoomiyihiinna garab istaagtaan, dowladdiinnana inaad garab istaagtaan. haddii ay khalad leedahay aad u sheegtaan, haddii aad tala haysaan aad u keentaan, haddii isbedelada la samaynayo aad aaminsantihiin kuwo ka wanaagsan inay jiraan inaad la soo xiriirtiin guddoomiyihiinna iyo wasiirada. annaguna waxaan diyaar u nahay inaan dhagaysano talooyinkiina.